horta runtii inagu reer Soomaaliland ahaan siyaasadda waynu ku kala duwannahay koonfur iyo Soomaaliya waynu ku kala tagnay laakiin dadka shicibka iyo bacmishiin isu dhex socdo oo sida caalamka isu dhex socdo waxba lagama qabin laakiin waa ogtihiinoo muxuu ahaayey gobolka ay joogaan ay ugu badan yihiin waa Laascaanood qolada ka timi koonfur gobolkaasu muddo dheer wuxuu ka bixi waayey dil iyo khalkhal iyo waxyaabihii Soomaaliya ka socday wax u eg ayaa ku soo noqnoqday arrintaasu dabeedna waxay keentay tuhun fara badan way dadka gobolka diiray wadada is dhalay wadada is yaqaana kii uu noqdo waa la isweydiiyey wariyaa waxaa dad aan dee gobolka u dhalan baa jooga baa layidhi bal marka horta sidaynu inagu isu hubsanno in barorta dadka gobolkoodii lagu celiyo idoo loo ogolaa oo inay bayac mushtariyaan oo aan la dhibi jirin oo muxuu ahaye 100 goor intaas laga soo ashkatoodo xagga dhaqanka iyo maamul muxuu ahaye bayac mushtariyaan laakiin leeyahay no dadku waa dad idinoo yimi waa la soo dhaweeyay reer Laascaanood laakiin maanta markii dilkii batay waxay noqday in dadkii la yiraahdo barorta aan iskala saaro wixii Soomaaliland ama wixii kale laga saaro gobolkii kaliya loo baahay waxa weeye dadkaas in la dhaqaaleeyo oo sida walba loo hayay si wanaagsan loo amba bixiyo oo la ixtiraamo oo la taakuleeyo oo waxooda loo ururiyo laakiin waxaan ka xumaynaa niman kale magaalo Soomaaliyeed baa dad Soomaali laga masaafurinaya adeer waxaa ku dhimateen oo waxa 60 sano isku dilaysa 30 sanadood waa waxa u kala bixi laadihiin waa waxa maydhaanka iyo beenta iyo khiyaalka ku noolid oo waxa maanta isku dulmaysan dagaalkii inuu dhamaan dunida lama istaa wiishiisa Soomaaliya isku dilaysa koonfur anigu magacay kala garan maayo laakiin oo islaam waliba marka waxa weeye dadka intaa tahli kari waayay inay dhexdooda ka heshiiyaan micni waxa weeye wixii gargo i weeday ama midaan meesha ku jirin baa lagu soo daraya ama mid meesha ku jira laga saaraya waxa muuqata waxa ka maqan inuu yahay cadaalad iyo sinaan iyo istixgeliyaan waa nimanka muxuu ahaayey inagiina leh hadda aynu soo dorsana ka hor ka tagnay inuu waliba xoog iskaga saaray oo odaygi wuxuu gowaanay si aad barre aynu dariiq marinay ayay weli maanta waxay leeyihiin dad Soomaaliyeed baa waxa laga soo masaafurinayaa dalso war ma jirto Soomaaliya aan wadanay waxa weeyaan Soomaaliland baan kale laakiin dad walaalahood dee isku jinsiyo isku diinaho isku waxay nahay wax badan waxyaabo badan ka dhaxayaan laakiin siyaasaddu inagama dhaxayso dowladnimadu marka waxaan leeyahay dadkiina waxaana tirahdaan ha dhibina laakiin hadalka kale uuna dhibaya mootibu lagu yahay xumaan buu keenaya wixii hore aan xasuusanaa nabarada hore nagu dhufateen adeer naga daaya waranka marmar u dhaqaajinaysaa qaadmay waxaan waa wax aan qaadmaynin marka wixii qaadmayda waa loo qaadaya wixii aan qaadmayna dib baa looga xisaabtamay ay leeyihiin laakiin cid la dhacaya iyo Soomaaliya cidna ma dhacdo wixii ka weyn baynu deynay Soomaaliya sabab in miskiino jawaan bariisasteen jawaankiisa wax ku fulayna waxaynu 30 sano wada lahayn bil faraago qaad saan marna markaa u kala nabad gallo iyo maamulada maalmo waxa uu nagu haya marka ma qabo cidana dhimayso wuxuudana laga qaadi maayo waxana waa hanti guurtay hadii ma guurtaa way qaadan karaan ma guurtadana de waqti ay la xisaabtamo dabeedna ilaa waa maxaa lahayd waa nimanka muxuu ahaayey iyagu og 30 sano kala maqanahay oo in xoog kala tagnay haddana weli maanta waxaad ku haday aad maqlaysa ku hadlaya marka waxaan leeyahay war ilaahay ka boqor naftiina runta u sheegay waynu kala tagnay walaa rujuuc abadan mana soo noqonayno dad walaalo ma noqonaa mis nabadgelina bise waanu ka xoog roonay waanu iska keen celinaa